waxaa stuudiyaha ila jooga cabdirashiid maxamed xaashi oo ka mid ah dadka hormuudka u ah ololaha guriga loogu dhisayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. cabdirashiid waa agaasimihii hore ee warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya. cabdirashiid oo ku soo dhaweynaya marka hore bal inaad noo sharaxdo fikirkan halka uu ka yimid markii hore. aad baa mahadsantahay Cabdullaahi walaal adiga bahda Universal fursadan aadna siisana aad iyo aad baan iga mahad celinaynaa. runtii fikradani waxay ka timi bulshada Soomaaliyeed waa fikrad shacbi ah oo loogu magac daray mahadsanid madaxweyne halhayskaas la siiyey si loogu mahad celiyo isla markaana loogu abaalmariyo madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadeena dhawaana xilka ka degay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. bulshada Soomaaliyeed waxay garteen muddadii madaxweynuhu uu talinayay in uu aad iyo aad ugu xifdiyey ugu ilaaliyey amaanadii qaran ee loo dhiibtay in uu diiday in lagu takrifalo hantida qaran ee dalkeenu leeyahay isla markaana la dagaalamay musuqmaasuqa iyo wax walba oo ku gadaaman. sidaas awgeed muddadaas madaxweynuhu uu shaqaynayay waxay bulshada Soomaaliyeed go'aansadeen in markan ay madaxweynaha ay yiraahdaan mahadsanid madaxweyne way isu yimaadeen way tashadeen media hay fariimo soo mariyeen isaxiga markii dambena waxay la xiriireen aqoonyahan iyo culimo Soomaaliyeed oo qaarkood dibadda ku dhaqan yihiin kuwaasa marka fikradda na soo gaarsiiyay fikraddii madaxweynaha ay gaadhay madaxweynuhuna wuxuu arkay fursad fiican inay fursadani tahay maadaama oo shacabka Soomaaliyeed ay ku fakarayaan inay hormuudaan qaaradda Afrika dhamaanteedba oo fikraddan iyo initiative-kan ay la yimaadeen ee ah hoggaan ama madaxweyne ama siyaasi soo talinayay oo ku caan baxay la dagaalanka musuqmaasuqa in la yiraahdo waa mahadsan tahay. sidaa daraadeedna barnaamijkan iyo ololahan mahadsanid madaxweyne waxaa qayb ka ah in madaxweynaha guri loo dhiso gurigaas oo aan ahayn guri caadiya laakiin ah guri taariikhiya. markaan ku leeyahay guri taariikhiya guusha gurigani markay dhamaato oo gurigan la dhiso macnaha waxa weeye isku xidhnaan iyo wadajir dawladda iyo shacabka ka timi waxay noqonaysaa fikrad aad u qurux badan oo Afrika oo dhan sidaan hadayaba ku sheegay aan u hurmoodno oo ku dayasho mudan waa arrin galaysa rekoorka oo runtii aad u qurux badan. marka ololahan hadda lacagta lagu ururinayo ee socda madaxweynuhu ma ogyahay dabcan haa sidaan hadayaba ku sheegay markii fikraddu ay ka timi bulshada madaxweynaha way soo gaadhay muddana laga tashaday. marka madaxweynuhu wuxuu arkay in uu bulshadiisa Soomaaliyeed markan doonaya inay hormuudaan shucuubta Afrika oo ka mira dhaliya arrin taariikhi ah oo muujinaya midnimada iyo wada shaqayntii xoog lahayd ee ka dhaxaysay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyo in halka laga sii wado oo aanay noqon mid halka ku istaagta oo tusaale muujinaysa. marka dabcan madaxweynuhu wuu ka warqabaa arrintaas insha Allah wuuna aqbal uu soo dhaweeyay dabcan saa sheegtay. ilaa hadda lacagta la ururiyay intee la egtahay waxaan aragnay fariimo baraha bulshada la soo dhigayo oo muujinaya lacagaha dadku ay direen qofba qayb intuu awood u diray. ilaa hadda noo sheegi kartaa inta ay leegtahay lacagta la ururiyay. runtii guddi baa arrintan loo xil saaray inaan ka hor dhacana ma rabo. guddigu istiraatiijiyad iyo qorshay leeyihiin way idiin soo gudbin doonaan insha Allah. ilaa iminkana wax rasmi ah oo aan cid la wadaagnay ma jirto laakiin marka la gaadho in arrintan aan idin la wadaagno way idin soo gaaraysaa. laakiin waxaan rabaa Cabdullaahi halka inaan ku daro muhiimaddu lacagta ma aha. waxaan haynaa boqolaal fariimood maanta waxna oo muuqaal iyo maqal ba isku jira iyo qoraalba oo bulshada Soomaaliyeed ay ku soo dirayaan oo madaxweynaha ay leeyihiin mahadsanid. yacni ujeedada ololahan waxa weeye in madaxweynaha la yiraahdo mahadsanid maxaad ku mahadsan tahay waxaad ku mahadsan tahay sidii mas'uuliyaddii qaran iyo hantidii aan kugu aaminay sidii wanaagsanayd ee aad noogu xifdiday madaxweynaha waad ku mahadsan tahay. marka ololuhu ma aha kaliya arrinta guriga laakiin waxa weeye waa daba socdo oo runtii aad u xoog badan oo ka qiimo badan wax walba. qiimo kala duwan oo aan weli rasmi loo hayna baraha bulshada wareegaya oo ah lacagaha la ururiyay intay leeyihiin maadaama aad ka mid tahay hormuudka ma qiyaasi kartaa ilaa hadda inta
meelaha ugu tala gasheen lagu soo ururso qiyaasta waxa ka fiican inaan hubantii idin sheegno insha Allah laakiin waxaan ku sheegayaa in aanan weli wax rasmi ah oo aan cid la wadaagnay aanay jirin lacaguhu qaabka ay u imanayaan ama ay u socdaan waa sida ugu heerka in number 1 ay taagan yihiin ama ay ugu horeeyaan ciidamada Soomaaliyeed ee qalabka sida ee furimaha dagaalka jooga dadka lacagaha soo diraya ciidanka ugu badan runtii iyaga oo fariimo soo raacinaya run ahaantii oo leh madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo muddadii uu shaqaynayay hal bilana mushaharkayagii ma aanan waayin madaxweyne mahadsanid cabdirashiid waxaan ognahay wadanka inay abaar baan ka jirto madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo ma wuxuu aqbalay in lacag guri loogu dhisayo la ururiyo isaga oo og heerka ay abaartu gaarsiisantay dabcan abaartu waa masiibo qaran madaxweynaha isagoo talinaya ku dhawaaqay arrintan inay masiibo qaran tahay waxaan kaloo xasuusanahay madaxweynuhu inuu dhowr bilood mushaharkiisii uu ugu deeqay ka hortagga iyo arrimaha abaaraha taas oo runtii markii dambena xukuumadda gaadhay oo xukuumadda lafteedu wasiiradu waatii ay isu tageen ee ay mushaharaadkoodii ugu deeqeen arrintan markii madaxweynuhu walaalkii xasan sheekh maxamuud uu xilka ku wareejinayay falashii gaarka ahaa iyo talooyinkii gaarka ahaa ee uu siinayay waxa kow ka ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu qorshihiisa 100 casho hortabin uu siiyo arrinta abaaraha arrintaasna waa arrin fushay aad iyo aad baan uga mahad celinayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida uu arrintaas ugu sii tallaabsaday ergeyga uu magacaabay iyo nidaamka aadka u quruxda badan ee hadda lagula dagaalamayo ama lagaga bulshadeena loogu caawinayo arrimaha abaaraha marka arrimahan isma diidayaan inagoo abaarta hawsheeda ku foogan oo ka wada shaqaynayna oo madaxweyne farmaajona uu hoggaanka ka mid yahay hawsha ku foogan yaa haddana ay muhiim tahay inaan masaajid dhisno oo haddana ay muhiim tahay in waxyaabo kale oo khayr ah aan qabsano waxyaabaha cabdullaahi waan kula wadaagaya cajiibka ee aan tiimka ololaha ku jira fariimaha loo soo diraya aan arkay waxa ka mid ah qof Soomaaliyeed yaa wuxuu leeyahay anigu waxaan bixiyay lacag $200 ah $150 waxaan ugu deeqay abaaraha $50 waxaan ugu deeqay barnaamijka mahadsanid madaxweyne marka qofku isaga masaajid ku darsan kara isaga abaaraha ku darsan kara marka kala saaraysan lacagaha maadaama idinka soo gaarayaan maya isagaaba go'aankiisa samaysanaya isagaaba yani way socotaa meel kale abaaruhu waa gurmad soo gaarsiinaya midda ugu tala galay kaliya tan ugu kaliya buu soo gaarsiinaya laakiin waxaan uga socdaa faamiliyo xoog leh oo gacmaha haysta oo 10 aan nala soo xiriiraya oo leh annagu waxaan doonayno oo dheeri gelinayno horta waxaan guri ma aha waxaan waxa weeye yani la dagaalanka musuqmaasuqa in aan idhaahno waa shaqo aad u fiican oo la qabtay oo taa aanu dhiiri gelinay ku leeyihiin iyagaana go'aansaday inay ololahan bilaabaan mana aha ololo diidaya arrimaha kale bini aadannimo ee aan ku fooganahay dabcan waxa socda cabdirashiid aan aragnaa waxay tahay in arrintan hadda aad wadaan ay aad u xoogaysatay marka loo barbar dhigo dhinaca gurmadka abaaraha oo aanay jirin hadda dad abaabulan oo sidaan oo kale ah oo ururinaya lacago loogu talagalay dadka ay abaartu saamaysay miyaan oran karnaa baahida abaarta iyo xaaladda daran ee jirta waxa idin kala muhiimsanaaday in aad xoogga saartaan isla markaana aad dad ku dhiirigelisaan guriga madaxweynaha loo dhisayo iyadoo baahida uusan xilligan qabin madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maya walaal ma oran karno waxaan jirina de ma oran karno idinku idaacad weyn baa tiin Universal TV waa idinku faanaa xaqaa'iqa iyo runta inaan u tagnaa baa wanaagsan mar walba marka xaqiiqadu waxay tahay arrinta abaaraha inaan siyaasadayn arrintan maamuuska madaxweynaha iyo ololahan shacbiga ah ee mahadsanid madaxweyne waa arrimo iskaabaya arrimo isdiidayana ma aha abaarta markii arrinteeda xoogga la saaro oo dadku ay isugu tagaan oo wixii laga qaban karo laga qabto soo ma habboonayn in kiiskan haddiiba xitaa aan laga marmayn loo jeestay haddee sidaan kuu sheegayba dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo xoogay saartay waana barnaamijka koobaad ee hortabinta leh innagana dowladda ayna hogaaminaysa madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa ayna hogaaminaya isagaan uga dambaynaa barnaamijkan abaaraha marka arrintaas arrin aad u fiican weeye meel fiicanna way maraysaa dadka qaar fariimay u dirayaan madaxweynihii hore ay leeyihiin
arrintan u jihay dhinaca abaaraha ma gaarsiisan fariimaha madaxweynuhu mana dhegeysta dabcan wayba u jihaysan tahay runtii oo madaxweynuhu de waa nabadoon talooyinkiisii baa yani hirgelaya arrintii uu ku baaqay baa soconaysa marka mar walba sidaan kuu sheegay marka laga hadlayo guri iyo dhismihiisa dabcan ugu yaraan waa inaad qiimayseen xadiga lacagta loo baahan yahay iyo guriga inta ku baxaysa dhismihiisa iyo dhulka intaba ma jirtaa qiimayn aad samayseen ee ku aadan nooca guri ee aad doonaysa inaad u dhistaan madaxweynihii hore والله taas waxaan u daynaynaa shacabka Soomaaliyeed oo ololaha wata iyaga go'aaminaya nooca guriga uu noqon doono talooyin badan bay soo direen waana wadi doonaa ololaha insha Allah inta aan ka helayno fikradda iyo go'aamada dhinaca shacabka ka soo fulaya waxyaabaha cajiibka ah ee xitaa maanta ay ku talinayaan oo fikirka ay ka keenayaan waxa weeye guriga halkee laga dhisayaa su'aalaha kamid ah way marka miyaanay jirin bartilmaameed ama lacag go'an oo qorshuhu u yahay in la ururiyo mise waa hawl furan oo aan lahayn meel ay ku xiranto maya way leedahay bartilmaameedu way leedahay aad u qurux badan laakiin wuxuu ku jira qorshayaasha insha Allah aan dhaqso idin la wadaagi doono oo waqtigeeda guddigu markay go'aamiyaan oo arrinta ololuhu hadda uun buu bilaabmay wuxuu leeyahay wajiga koowaad wuxuu leeyahay wajiga labaad hadda wajigii koowaad baa socda marka insha Allah kama hor dhacayno meeqa bilood meeqa sana ugu talagashay wajiga koowaad bil buu socon doonaa insha Allah way dad qaar waxay ay sheegaan inay arrintan tahay qorshe tiimkii hore iyo dawladdii hore ay doonayaan in ay dadka kaga jeediyaan dawladdan cusub maxaad uga jawaabaysan eedda qaabkee looga jeedinayaa dawladda tusaale dawladdeenu way xoog badan tahay maanta taa shacabka Soomaaliyeed baan u xaqiijinayaa xilliga aad ku soo barnaamijyadeedana way qorshaysan yihiin runtii ma aha si fudud wax loo weecin karo qorshayn bay leedahay qorshayn dejisan iyo nidaam bay leedahay barnaamijkana de waa barnaamij shacbi ah shacabkuna ma yani leexin karaan ujeedooyinka cadcad horumarinta dawladnimadeena bale way garab taagan yihiin taas marka qorshiinu maaha inaad dadka ka mashquulisaan inay la socdaan dawladnimadooda taageeraan iyo howlaha socda intaba maya ma aha taas laakiin waxayba tahay eg waxaan la dhiiri gelinayo inaan fahano weeye horta waxaan la dhiiri gelinayo shakhsi ma aha waxaan la dhiiri gelinaya waxa weeye waa mabaadi'da ku dhisan la dagaalanka musuqmaasuqa haddaynaan musuqmaasuqa la dagaalamin argagixiso maanta kama gacan roonaanayno haddaynaan musuqmaasuqa la dagaalamin deyn cafinta kama liibkeeni doono macnaha waxa weeye ololahan wuxuu dhiiri gelinayaa barnaamijkii la dagaalanka musuqmaasuqa ee madaxweynuhu hormuuday iyo wadaniyadii lagu shaqeeyey taas oo maanta aan Afrika oo dhan ku hogaaminayno marka waa arrin dawladnimadii bilaysa oo dawladii xoojinaysa run ahaantii walwal intee la qabtaan in dawladdu ay qaado tilaabooyin ka dhan arrintan wax walwala taas kama qabno run ahaantii mana iman karo wax looga walwalo sababtoo waa dhowr jeerna waan kuugu celiyey waa arrin dhamaystiraysa dawladda macnaha madaxweynihii maanta kursiga baneeyey in loo mahad celiyo sharaf waxay u tahay cid kasta oo madaxa oo maanta talinaysa yaa mas-uulka lacagahan oo lagula xisaabtamaya haddii ay wax qalad ka yimaadaan guddi loo saaray baa jirta oo uu madax ka yahay agaasimihii hore ee madaxtooyada qaranka professor Maxamed Cabdullaahi Ciise akoonada ma isaga gacanta ku hay dabcan mas'uuliyadda iyo habka loo maamulayo dhaqaalaha isaga hormuud u ah guddigaas hawsha gacanta ku haysa waxa kale oo jira guddi farsamo oo technical ah oo hawsha ka shaqeynaya waxa kale oo jira dad isxilqaamay oo volunteer gareynaya oo ka shaqeynaya barnaamijkan oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo madaxweynahooda jecel oo يعني mar walba ku faraxsan inay qayb ka noqdaan ololaha mahadsanid madaxweyne eedaha qaar ee lidin jeedinaya waxa kamid ah in dawladdii hore ay musuqa laftirkeeda qayb ka ahayd oo ay ku kacday arrimo ku saabsan musuqa sida daraadeed la doonay in lagu qariyo
kiisaskaasi oo arrimahan la xiriira ololahan loo abaabulay maxaad uga jawaabaysaa ida taas inaan caddaynaa u baahannahay sababtoo ah dee record baa jira marka dowladdii hore si qaabka ay u soo shaqaysay in idinku aad daba gashaan weeye oo xaqiijisaan inaan hore uga gudubnaa fiican laakiin anigu waxaan ku xaqiijinayaa wax marmarsiinyo ah ma yeelan karto musuq maasuq musuq maasuq iyo hanti qaran oo la dhacana wax gunti lagu qariyo waa ka weyn tahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajona intii uu talinayey wuxuu caan ku ahaa la dagaalanka musuq maasuqa wuxuu ku shaqaynayay barnaamijka deyn cafinta oo runtii isku toosiyey isla markaana wax weyn u taray hay-adaheenni maaliyadeed oo ka ilaaliyey in aan wax musuqi dhici karin tusaale ahaan waxa ugu badan ee gacanta dowladdu ay wax ka hesho waxa weeye waa cashuuraha cashuuruhu dowladdii madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ka hor 18 hay-adood oo kala duwan oo qaarkood NGO yihiin baa lacagaha dakhliga gudaha ururin jiray markii la bilaabay barnaamijkan cusubna waxa la mideeyey dakhli ururintii dalka wasaaradda maaliyadda oo keliya yaa arintaas maamuleysay waa garan kartaa dee inta aan ka soo guurnay iyo halka aan joognay waa beeninaynaa totally waxna kama jiraan arrintaas dadka lacagaha soo diraya ma kuwa gudaha joogay u badan yihiin mase dadka dibadda joogay Soomaaliya wallahi gudaha aad bay u soo dirayaan dibaddana aad bay u soo dirayaan sidii aan kuu sheegay waxa xoog leh ciidanka Soomaaliyeed ee kala duwan oo qaybta weyn ka qaadanaya waxa kaloo qayb weyn ah dhalinyarada waxbarata waxa kaloo qayb weyn ka ah dhalinyarada dowladda u shaqaysa يعني دين والبا لعجها سوي نجسوا جاريان وحكلوا بربر سعداد يعني دتكو سيدا أي أتشع على سنة يان إنه يجرب استاجان دولة نيودو ده. وحتى الهدف كأرنتن وحويه هاي بيرجلين إيه مهالعلين مدحوينيه هورا أو كصعب سن سيدا وأمانة دويلادي. وأنا مركب جوه الرئيسي أو بعد النوع هنا نركين. ميان أرنكرنا واحد يكلم أنت تاني إن ما ضحى ذي سيكون الرئيس. أنا يجو إلى لين أمانة اللي ديبتي وعاد موجين إنسان كل يوم كشقين إنسان صور على أنت الحرير. ما يولا لما أوران كرنا تاريخ والبمر بالله بلعبة وحن كوران كراسي كوبان عن كوجي كراب وبرارو كي مدينة شعبك الشعب كيني يا حلقا مرحلة دودي أما فهم كودي ودنيات كر أقعدي تاسي كوجرتين إن مدحوينه هذا يكون لهذان مدحوينه مهد سنة وإيمان دونتا madax kale in sidaasoo kale looga mahad celiyo waxaana dee aad runtii u qurux badan oo ay tahay inaan ku faano kuna dadaalno in shucuubta Afrika aan fikradda noocan oo kale ku hogaamino run ahaantii inta ololahan aan wadnay waxaana la soo xidhiidhay idaacado caalami ah oo danaynaya inay wax ka ogaadaan shacabkan Afrikaanta ah ee maanta u ololeynaya in ay abaal mariyaan madaxweynahoodii la dagaalamay musuqmaasuqa meelo badan baa laga danaynaya oo ka baxsan Soomaaliya in la ogaado arintani meesha ay ku dhamaan doonto ummadda Soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa ololahan inay xoojiyaan hore loogu sii socdo aan ka guul gaadhno dhisno guriga taariikhiga ah ee aan u socono inaan dhisno gurigaas oo ah guriga midaynaya shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ugu dambeyn Cabdirashiid ololahan dhab ma yahay oo ma noqon doona ayaad isleedahay mid miro dhala mise dadka qaar sida ay idinku eedaan wuxuu u yahay xaalad aad doonaysaan in aad waqtigan la joogo aad indhaha dadka ku soo jeeditaan taariikhdan ka jawaabaysa waana u daynayaa in aan ogaano taariikhda laakiin aniga fahankayga iyo hawshan oo hadda aan qayb ka ahay waxa ii muuqataa arrintani inay tahay olole shacbi ah shacabka Soomaaliyeedna mar walba runtii mar walba waxay u kacaan way taam yeelaan wayna dhamaystiraan halka ugu dambaysa waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed nagala qayb qaadanaysay aan u mahad celiyo aad ugu mahad celiyo barnaamijkan haddii aad soo dirtay fariin aad madaxweynaha mahadsanid leedahay walaal waa gaadhay fariintaadii haddii aad soo dirtay waxtar kale oo aad ku tala gashay in ololahan uu ku guuleysto waxay ku jirtaa gacan aamin ah waxaan kaloo runtii uga digayaa
ummadda Soomaaliyeed oo kuna baraarujinaya inay hubsadaan akawmada iyo koontooyinka ay lacagaha ku dirayaan waxa rasmi ah kuwa ay ku arki doonaan bayjajka loogu talagalay dhinaca internetka ah ee barnaamijkan loogu talagalay waxaan kaloo fursadan uga faa'iideysanayaa in aan ka cudur daarano soo yaradahay gaar ahaan shacabka reer Puntland oo aad noola soo xiriirayay oo jeclaa akawmada u fududayn kara inay barnaamijkan ka qayb qaataan in loogu soo daro waxaan u sheegayaa akawmadii aad codsateen aad barnaamijka ka qayb qaadan lahaydeen caawa ayaad ka heli doontaan baraha rasmiga iyo goobaha rasmiga ee aad nagala xiriireyseen waana mahadsantihiin marka fariimaha dadku ay soo dirayaan haddii yihiin maqal iyo muuqaal iyo lacagaha ay dirayaan intaba xogahooda madaxweynihii hore wuu la socdaa wuu ogyahay waa la gaarsiiyaa soo ma ha tiimka markay soo gaadhaan xoguhu waa loo gudbinayaa ha waxaan kaloo intaa kugu darayaa oo fursadnayni inaan idiin sheego madaxweynuhu wuxuu la hadlay dad badan oo Soomaaliyeed oo soo codsaday madaxweynaha inay la hadlaan wuu la hadlay wuuna uga mahad celiyay dadaalkan ay ku doonayaan inay Afrika ku hormuudaan aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo kamida dadka hormuudka ah ololaha guriga loogu dhisay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo barnaamijka dabagalka la qayb galay Cabdirashiid aad oo maasantay